Asalaamu calaykum. Ma tahay arday raba in uu horumar ka sameeyo dhanka presentationada oo soo jeediya si uu u helo buundada ugu wanaagsan ee uu bixiyo macalinkiisa? Mase tahay nin ganacsada ah ama gabar ganacsada ah oo raba inay soo diyaarsato presentationka ugu quruxda badan iyo informationka ugu wanaagsan si ay u soo jiidato dhagaha iyo indhaha dadka customerkiisa ah? Amase ma tahay qof dealer ah oo doonaya in uu helo maalgashi kaaga yimaada shirkado kale si aad u heshid arrinkaas oo dhan? qof kasta oo aad tahaba Higgs Technology waxa ay kuu soo gudbinaysaa sida ugu fudud aad ku samayn karto presentation saameyn ku leh qofka loo soo jeedinayo. Aniguna waxaan ahay Maxamed Xirsi. Soo dhawaada. sida hore idinku sheegay maanta cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay sida aad ku diyaarin kartid presentation saameyn ku yeelan kara qofka loo soo jeedinayo. Sida ogtihiin arday fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo jeedin presentationkaas waxa uu ka kooban yahay information iyo design. Haddaba maanta waxaan qaadigi doonaa sida qofka ardayga ah ama qofka ganacsadaha uu ku diyaarin karo presentation aad u qurux badan. Aan ku hormarno introduction. Waxaa jira presentationku inuu noqon karo laba nooc: presentation xun ama presentation wanaagsan. Sababta uu ku noqon karo presentation xun ama sababta uu ku noqon karo presentation wanaagsan waxaa weeyaan contentiga iyo designka. Content waxa ula jeeda informationka uu gudbinayo iyo designka qaabka loo diyaariyay. aan u imaano contentiga ama informationka sida loogu shubo presentationkan. Hadda arday tahay oo aad soo diyaarsatay paper oo aad soo akhrisay information ku saabsan kaba soo qaad wuxuu ku saabsan yahay sida loo manage gareeyo korontada oo ku saabsan yahay soo qaad. Markaas waxaa laga doonayaa marka koowaad inaad soo akhrisatid warqado buugaag kale. Markaad soo akhrisatid inaad ula imaatid waxa la dhaho keynotes ama key points inaad la imaatid oo key pointskaas oo clear ah ku qortid presentationkaaga. Haddaa ganacsada tahayna inaad fikradaada inta si wanaagsan u jajabisid oo si wanaagsan aga fikirtid kadib aad keynoteskaaga qortid. Lama doonayo in aad information badan aad ku qortid slidekaaga. Mana la rabo in slidekaaga halkii slide uu ka bato 6 line, because of 6 line haddaa ka wadisid waxaa dhacayso qofka audience ama qofka ku dhageysanaya ama qofka ku daawanaya wuu ku caajisaya informationkaaga, wuu ku caajisaya presentationkaaga. wax badan oo micnaana ma sameynayaan ama ganacsada ahaw ama arday ahaw. Marka muhiimadu waxay tahay informationka aad ku qoraysid inay keynotes noqdaan ama key points inay noqdaan. sidoo kale waxay saameyn kala leh farta. Fadlan ha isticmaalin farta Time New Roman, because of dad fara badan ayaa caalamka isticmaala waana laga qash dhacay waana lagu daalay nooca ay u taalo. Isticmaal in aad samaysid fara kale oo aad ka soo degsatid Google ama website kale oo badan. Sidoo kale title-ka iyo subtitle-ka ciwaanka iyo ciwaan xigeenka waxaa la rabaa in aysan zaid u kala badanin, laakiin oo midba midka kale wax yar ka yaryahay. lamana rabo in ciwaanku aad u weynaado inuu zaad u yaraadaan lama rabo. waa far macquul ah ayaa laga rabaa. sidoo kale waa inay noqdaan wax la akhrin karo oo akhrin karo qofka fadhiya ee presentationkaaga dhageysanaya inuu wax akhrin karo ay noqdaan laga rabaa. arrinta kale oo muhiimka ah waxay tahay colorka. waa ognahay dad fara badan waxay jecel yihiin inay kalaro fara badan sameeyaan oo wax badan oo qurux badan ay soo saaraan. sax, innovationka iyo hal abuurka waa wax loo baahan yahay, laakiin waxaa laga rabaa in kalaradaadu aysan ka badnaanin 5 kalar ugu badnaan. sidoo kale arrangementigana aad ayaa laga rabaa inuu isku qaato. kalaro isqaadanaya inay heshida laga rabaa. sidoo kale waxaa kaloo muhiim wax la content ama contrast wax loo oo ah haddii backgroundkaaga uu yahay madow waa in ama uu yahay dark color ka warba noqdo, laakiin dark haduu yahay waa in farta ay noqotaa light, in effacer bright inay noqotaa farta. haddii farta ay tahay darkna waa in backgroundku uu ifaya si ay isku soo saaraan. sidoo kale waxaa jira in qaarkeen aan soo gelin picture. haddii aan soo gelisid picture hal sawir haddaa soo gelisid slidekaaga, halkaas sawir informationkiisa ku gees qor.
laakiin hadday dhacdo in aad sawiro kale 2 ilaa 3 ilaa 4 sawir aad soo gelisid hal slide, fadlan waxaa kaa codsanayaa informationkaaga inuu isku qornaano isla slidekaas oo uu ku qornaado slideka labaad. maxaa yeelay wuxuu qasayaa qofka fadhiya meesha, mana fahmayo qof. muhiimadana maaha inaad adiga wax soo jeedisid, ee muhiimadu waxay tahay in lagu fahmo oo waxa aad rabtid inaad qofka ka dhacdhaciso oo qofka fahmo. ugu dambeyn, waxaa jira 2 nooc oo software ah oo lagu sameeyo presentationka in lagu diyaariyo. midka koowaad waxaa la yiraahdaa PowerPoint, waxaana iska leh Microsoft, gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa Windows-yada. waxaa kaloo jira software kale oo lagu magacaabo Keynote waxaa loo isticmaalaa Mac iska leh Mac lagu isticmaalo. sidaas darteed waxaa jira website badan oo laga heli karo design qurux badan. insha Allah waxaan sameyn doonaa in aan soo gelino casharo ku saabsan sida loo sameeyo design-ka. hadda waxaan sharaxnay qaabka ugu habboon farta, color-ka, picture-rada, contrast-ga. waxaan soo gelin doonaa casharo ku saabsan sida rasmiga ah ee loo design gareeyo design-ka ugu quruxda badan. waa mahadsantihiin, kusoo dhawaada Higsi Technology.